guddiga dhexdhexaadinta ee xiisada gobolka Mudug ayaa maanta ku guuleystay inay magaalada bartamaheeda ka qaadaan isbaaro kala xirtay koonfur galbeed Gaalkacyo iyo qaybaha magaalada. Isbaaradani oo ka dhalatay dagaaladii magaalada Gaalkacyo ka dhacay ayaa waxaa laga qaaday bartamaha laamiga, waxaana ay sabab u ahayd in dad badan ay barakacaan, suuqu uu xirmo, dadkuna ay xasloonaan waayaan iyadoo aanay wax badihi magaalada ka socon. ergada dhexdhexaadinta iyo simada gobolka ayaa goobjoog ka ahaa kuna guuleystay xalinta qayb ka mid ah mushkiladihii magaalada ka taagnaa, waxaana halkaasi hadallo ka jeediyay qaar ka mid ah ismadii iyo culimaa u diinkii goobtaasi goobjooga ka ahaa. ugu horeyn waxaa hadal furitaan iyo mahadcelin iyo dhiirigelinba isugu jiray halkaasi ka jeediyay garaad maxamuud cilmi sharwa oo ka mid ah ismada gobolka. galabtay fagaarahan weyn oo idiin muuqda oo ay ka soo qayb galeen kumayaal qof wuxuu u dambeeyaa magaaladii kala xirayd iyo maxaan ku sheegaa waxyaalihii meelaha aasaasiga oo aan laga maarmin furitaankoodii. meelahaas ha ahaadeen kuwo bulshada ka dhaxeeya iyo kuwo gaar loo leeyahayba. intaa ka bacdi waa mahmaahyo hore ishii bugtay ku bikaacso. wadadii waa la furi waayey, reer hebel dagaal bay damacsan yihiin, reer hebel ayaguna jiqday ku soo jiraan oo waa dagaalamayaan. been weeye, waxaas waa been. dadkii reer Gaalkacyood oo aan waxba ka maqnayn ayagoo isku darsan waa kuwa idiin muuqda. sidoo kale waxaa isna halkaasi hadal ka jeediyay Cali Ugaas Maxamed Cali oo isna ka mid ah ismada gobolka, waxaana uu dhammaan bulshada gobolka ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan xaslinta iyo xakamaynta xaaladda gobolka. waxaa meesha ka muuqanaya oo farxad leh, dadkii oo raqam walba leh oo nabad u heelan oo qof waliba meeshiisii uga aadan yahay oo aad moodo hadda ilaahay baa amar kale, ilaahay baa ballamiyey. xaruntaani meeshaan awal waxay ahayd meel xiran oo mataqaanaa aan la isu gudbi karin oo dadku uswax mari kara aan lagu arag. ilaahay baa wuxuu ka gooyey xargihii, baabuurtii kala xayirayd baa haddana dhaafaysa, dadkii adeegan waayey baa adeeganahaya, dadkii isu mari waayey baa isu marahaya. ilaahay xarguhuu ka gooy, ilaahay xarguhuu ka gooy, annaguna waa kala goyn. waa farxad, hadalka badinan mahayo, rag baa iga dambayn doona. farxaddaas waxaan wadi karaa intii la doono, laakiin ku talaxtooy maayo, rag baan u bannaynaya, waxaan uga baxayaa ilaahu noo siyaadi. isbaaradani laga qaaday bartamaha Gaalkacyo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dadweyne aad u fara badan oo boqolaal gaaraya, kuwaas oo ka soo qayb galay dareenkoodana ku muujinayay munaasabadii la isugu furayay magaalada Gaalkacyo, waxaana ay fikradooda ka dhiibteen sida ay u arkaan habka loo xaliyay mashaakiladii ka taagnaa Gaalkacyo qayb ka mid ah. khaliif aadan maxamuud waxaan ku faraxsanahay meesha wanaagsan oo xaaladdu ay marayso iyo jidkii la qaaday. aad baad mahadsantahay. alxamdulillaah rabbil caalamiin. waxaan ku faraxsanahay nabadda dhacday, odayaashaanu ducaynaa. ilaahay baa markii hore mahadnaqle. ilaahay khayr ka dhigo, nabad baa la gaaray. alxamdulillaah, aad baan ugu faraxsanahay. axmed maxamed cabdi axmed gani, aad baan ugu faraxsanahay nabadda iyo ilaahay baan loogu mahadnaqayaa. ugu mahadnaqaynaa nabadgelyo dhacday, ilaahay ugu maqan soo dhaweeyna nabadgelyo meesha ka dhacday waana qaadanaynaa. alxamdulillaah, ilaah baa mahad leh. waad u jeedaan quruxda. waxaa loo baahan yahay dadaal dheeraada qof walba inuu sameeyo. nabaddii hadda waxa weeye waa inoo bilaabatay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa tillaabooyinka hadda aynu qaadayno inaynu ku guulaysanno, kuwa dib u qaadi doonaan ku guulaysanno. qaalida isbaaradani ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa waanwaanta iyo dadaalada nabadeed ee lagu wado sidii magaalada Gaalkacyo aanay mar dambe xabad uga dhici lahayn, waxaana odayaashu ay u muuqdaan inay ku guuleysteen qayb ka mid ah dadaaladii ay sameynayeen ee ku aadanaa nabadeynta guud ahaan magaalada Gaalkacyo. mahad jaamac Koronto, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Gaalkacyo.